another one tii tacadde magac iyo masiibo maalin bay baxaan ogowse fartuun balbalaarka heestii ay soo qaaday waxay ku muteysatay hadiyad khaaliya oo uu guddoonsiinayo guddoomiyaha durdur media السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو نقد وناكسن وانيغو اتي تعدي يوتيوب كا داونيسان واتي تعدي channel meel walbo aad dunida ka joogtid iyo si walbo aniga ii daawanayso waxaan ku leeyahay habeen wanaagsan haddii aad ku cusubtahay youtube channelkayga ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad maxaa anigu kaa rabaa tii tacda ahaan waxaan kaa rabaa inaad saartid subscribe gambaleelka furatid share dhahdid oo la wadaagta asxaabtaada intaasoo dhanna ma ahan wax lacaga waa bilaash anaa kaa soo hubiyey kaa soo xaqiijiyey kaana soo ogaada haddii aad subscribe saartay channelkayga inaan hal senti lagaa goosan doonin okay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay waxaa baraha bulshada social media Instagram Twitter Facebook YouTube hadalheynta ugu ballaaran qabsatay fanaanada cusub waayada nafanka ku soo biirtay ilaa iyo haddana soo qaaday saddexdaas heesna noqotay saddex hees ee saameynta ugu badan ama ugu ballaaran inta fanaan Soomaaliyeed heesa ay yeelatay waa fartuun balbalaarka oo kasoo falcelisay heestii ay soo qaaday ee ahayd waan kugu wareejinaa haddii aad rabin iyo haddii aad rabtidba anaa kugu ruxaayo heesta kadib bulsho badan ayaa ka falcelisay qaarkood way amaaneen qaarkoodna way dhaliileen balse ogow fartuun balbalaarka heestan waxay ku muteysatay abaalmarintaasna waxaa guddoonsiinayaa layidhi ama u ballan qaaday guddoomiyaha durdur media maxamed amiin gulfaan waxaana beejka nabad iyo nolol loogu soo mahadceliyey fartuun balbalaarka sababtoo ah waxaa la yidhi fartuun balbalaarka heesteeda iyo cabdiraxmaan cabdishakuur guddoomiyaha xisbiga wadajir shirkiisa jaraa'id iyo heestii fartuun balbalaarka ayaa waxaa la leeyahay hal maalin ayay baraha bulshada isla soo galeen shirkii jaraa'id ee guddoomiyaha wadajirna hoos ayuu u dhacaya la leeyahay saameyn waa uu yeelan waayey heestii fartuun balbalaarka ayaa ka awood badisay oo ka xoog badisay dadkana maskaxdooda qabsatay marka taasna waa ka soo mahadceliyeen groupka nabad iyo nolol maxaa yeelay shirkii jaraa'id ee cabdiraxmaan cabdishakuur maadaama uu faa'iido badan yeelanin dee farxadoodina waaye kooxda nabad iyo nolol taasna maxaa la yidhahdaa ammaan kale ayay ku muteysatay fartuun balbalaarka magacaa la yidhi iyo masiibo maalin bay baxaan ishqiyaasag waxa waaye duruuraha ilaaciyo dab la shiday habeennimo dalfag bay ka muuqataa yaa markiiba horeba duruqdee fartuun balbalaarka ka leexda horteeda marka kooxda durdur media iyo fartuun balbalaarka ayaa soo jawaab celiyey kadib 3 maalin oo baraha bulshada ay mashquulisay dhammaanna youtube-leyda ay reaction ama falcelinka wada sameeyeen ayaguna markoodii ayay soo fariisteen wax walbana waxay caddeeyeen in loo sameeyey ku talagal sida anigu fiidiyooga hore ugu soo hadlayba waxaan dhahay Soomaali waxay tiraahdaa wecel marna waa kadis marna waa kaskaa fartuun tii hore hadday kadis tan waa kaskaaga marka jawaab cad oo aan ku qanacdo la imaaw marka jawaab cad oo aan ku qanacno ayay la soo sheertageen marka idinkuna wax kasta markii la keeno ama aan ka hadalno waxaa muhiim ah inaa caddeynteedana nala aragtaan oo nala daawataan marka waxaan rabaa inaa ila aragtaan oo ila daawataan durdur media iyo fartuun balbalaarka wixii ay ka dhaheen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هلكم دردر ميديا أفر لواتن ساعة جدود waxaa hawada saaran hees ay qaadaysay walaasheen qaalida fartuun balbalaarka runtii dad badan ayaa daawaday social media oo dhan ay ku jirta reaction kala duwan laga soo bixinaya
sidoo kaleeto fartuun waxay ka mid tahay fanaaniinta magaalada muqdisho magac ay leedahay taageerayaal badan ayaa ku xiran xaqiiqatan waxaa hadda ku jiro oo qadka si toos ah ula socdo gudoomiyaha durdur media abaalmarin qaali ah guddoonsiin doona fartuun balaarka laakiin waxaa siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey gabdhaha way ka falceliyeen wiilasha way ka falceliyeen odayaasha way ka falceliyeen gabadh iyo wiila u kala qaadeena bulshada inteeda kale fartuun caawa waxay jawaab siinaysaa oo labada dhinac ay ka falcelisay gabdhaha way ka hadleen wiilashana way ka hadleen marka fartuun kow gabdhaha ka bilow waa aragtaanoo nidaamiye iyo xasan toob oo labada dhinac war kala galay fartuun balbalaarka wuxuu yidhi nidaamiye 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday fartuun balbalaarka taas beenta ma waa sax fartuun balbalaarkana wuxuu yidhi waa fanaaniinta magaalada muqdisho kuwoodii ugu cadcad taageero badan ayay ku leedahay magaalada muqdisho wuxuu yidhi fartuun balbalaarka waxaa abaalmarin guddoonsiinaya ayuu yidhi oo qadka si toosa ugu jira guddoomiyaha durdur media maxamed amiin gulfaan xasan toob ayaa soo booday oo waa aragteen wuxuu leeyahay dadka waxaan u kala qaadaynaa wiil iyo gabar ayayna u jawaabi doontaa fartuun balbalaarka balse su-aasha meesha taagan oo jawaabta u baahan maskaxdeedana gaday ayaa waxay tahay maxaa guddoomiyaha soo kiciya xilliga adag ama xasaradda ay ka jirto durdur media group waa aan ogeen markii hore ay isheeyeen durdur media iyo mataanaha media durdur media iyo qolooyin kale durdur media arrintii fartuun balbalaarka mar kasta oo marxalad jirto waxaa si toos khadka loo soo geliyaa guddoomiyaha durdur media maxamed amiin gulfaan marka ma aqaani sababta markaasi keliya loo adeegsado guddoomiyaha ma waxaa loogu gudbaa marxaladaha ma dadka ayaa loogu indhasircaadiyaa ma waxqabadka durdur media ayaa ammaantiisa u imaadaa marka anigu taasi ma gadan karo balse jawaabta cad ma aqaani meeshaan ka heli doono haddii aad adigu hayso hoos igu soo reeb marka aan kusii socono fartuun balbalaarka u jawaabaysa gabdhaha soomaaliyeed horta dhammaan asxaabta meel walba ay joogaan wada salaamayaa anigoo fartuun ee mar labaad iyo mar saddexaad waan soo noqday heesta markuu qofka horta wax uu youtube-ka soo dhigayo waxaan usoo jecleen oo uu maskaxdiisa kusoo seefgareenin youtube-ka ma soo dhiga bilaash macindara meeshaan wax ma loo soo dhigo calaanshaan dadka jaalantida kasoo bixinayaan horta nimankan oo youtube leedahay mid gooni waa taas qof kasta waa shaqadiisa dantiisa ayuu ka fiirsadaa youtube-kan ma aha inaad dhahdid saas waaye kan waaye in waxaan sugaynaa jawaabtii sarwaalka camalan sugaynaa iyadoo meel kale fadhisa iyo waxyaalahaas ma aha waxay tiri mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa aan soo laabtay waxay tiri qofka marka uu youtube rabo in wax soo geliyo waa wax uu asiga jecel yahay uguna soo talagalayo marka waxay tiri dadka youtubeleeda meeshooda ii joogaan balse waxay tiri dadka challenge waxay ka wadaa sida challenge macnaheeda reaction ayaan u maleynayaa marka waxay qirtay fartuun balbalaarka inay ku qanacsan tahay barnaamijkan ay samaysay balse dad badan oo fartuun balbalaarka u nixi jiray sheegi jireen inaysan maskiin tahay inaysan wax aqoonin ayay maanta liddi ku tahay barnaamijkan marka aan kusii socono youtubeleyda yurub joogto labada qof oo maanta ugu fiican dadka soomaaliya labadaas qofan inta soomaaliya joogto horta waa dad aad iyo aad dhibaato u badan koob iyo labo hadal ma sii wadaayay horta dumarka hadda waxaan arkaya facebook dumar islaafsanayo fartuun balbalaarka war ayaa naga qabta ayaa naga celiya warsaan aniga haddaan waalanahay
magaaladan dhex wareegi lahaa 24 saac because ani dhan qurbaca noqoleed miya qurbac alaabta oo maalin kastana waa Qashin. la arki lahaa because ani dhan waa isbedeli lahay si kala noqon lahay haddaan qofka hadduu shubanayaho gurigiisa iska dhex fadhiyo hataa teleefonkiisa qof uu la sheekaysanayno shub iska dantiisa waxay raacana tiri labada YouTube waxa ku duuganaa ee ugu caansan Yurub markii laga reebo kuwa magaalada Muqdisho aad ayay u dhibaato badan yihiin ayay tiri gabdhaha baraha bulshada soo fariistay ee dhahayna qoftan yaa naga qabsado qoftan yaa naga waxeeyna waxay tiri yaa ilaa fool ku taala aan ku sii socono fartuun balbalaarka والله العظيم waxa ka duuganaya ka weyn horta naftirkii waa inaa horta kow gadaal aad isku noqotay marka hadal ay sheegaysiin صح markay ani ahaanteeda fartuun ahaanteeda asxaabta saas leedahay waxay horumarkayga jecel yihiin laakiin dadkan kalma la soo qaato jaalanta ma laga soo bixiyo xalay fanaanad weliga arkina hees qaadaysa maxaa jaalanta lagu soo bixin waay maxaa Facebook saas lagu haan waay waa maya ani wixii saas lagu soo haayay iyo aragtideedu wixii loo jeclaystay صح ayaa loo qabaa muuqaalashan muuqaalo ka fiican ka badanna waan soo wadaa waa daawan doontiin weligin horta ani fartuun ahaantay ma nigi jawaayi dhankiina farxad ayaa mar walba nii rajeynayaa dumarka badi oo facebooka soo fadhiisanaya soo hadlaya because adig gadaashaada wixii yaala fiiri ha fiirin intan hortaada taalo adiga isxakameeya leedahay ha adiga sharaftaada ayaa meel ku dhacday ani teeda ka bax laa wallahi teeda ka bax gabdhaha oo social mediaha ku jira waxaa leedahay taada fiiri alaali waxay tiri fartuun balbalaarka adigu taada fiiri oo ilaali anigu teeda ka bax adiga ayaa sharaftaada meel ugu dhacday ayay gabdhaha jawaab cad u siisay marka qoftii gabar oo fartuun balbalaarka u hiili rabtooy aday ku taalaa fartuun balbalaarka waxay tiri aniga khamre khiyaarkeygaan ku cabay idinku tiina ka baxa teeda faraha laga qaado midda kale waxay tiri fanaanad cusub aa soo baxday wax challenge gareeye ama reaction ka bixi mal balse anigu dadka inay jecel yihiin ayaa meesha ka muuqato war adigu waxaaga hees maa waa khayrul caadi waa khayrul caadi marka aan ku sii socono fartuun balbalaarka waa hadalka sii wadata toos waxaa qadka ugu jiro gudoomiyaha durdurmeediya oo wiilasha oo kale ayagana jawaab kala sii wiilasha horta weeroo yihiin aad iyo aad wiilasha waxay ku leeyihiin fartuun abaaye waxaas ma iska dhaaftid runta laisku sheegaa fiican nimanka weerooyin ilaa waxa gabdhaha waxay dhahayaan waa waasheen gabadhii waa ka waasheen caqli ma lahan waxa meesha ugu daran naagahan lasoo deysto sida looda camal oo magaalada iska yaaca meelay ka dhashteen la kiseenin hotel ha tagin maaleda kuwaas saaxiib ani hadal waa ani qof walaashii camal waa صح wax ma dhahay بكر باشي صح ilaa adi iswaani toobakeen ilaahay ka cabso horta naftirkaaga adi toobakeen markas ani ii soo jeeso markas ani ii wacdi waa kaa qaadana wacdiga fartuun balbalaarka waxay agniidin leedahay marka hore adigu toobadkeen oo ilaahay ka cabso markaas kadib aniga ii wacdi waa kaa qaadanaa marka waxay tahay inta fartuun balbalaarka wiilasha waxaa iigaga daran gabdhaha ayaaba iigaga daranay tiri wiilasha way baroon yihiin waxay leeyihiin abbaay waxaan ma iska dhaaftid abbaay saa maa yeeshid laakiin waxay tiri gabdhaha waa kuwa ugu daran oo aan anigu leeyahay idinka isfiiriya idinka toobadkeena kadib waxaan iga qaadanaa marka klibka qaybtiisii ugu dambeeyaan soo gaarnay ilan indha adeeg waa raasumaala la yiri indha adeega beledka lagu wada joogaa klibka qaybtiisii ugu dambeeyay la arka guddoonsii doona abaalmarinta iyo heerka ay tahay guddoomiyaha ayaa ka hadli doona laakiinse maxamed muuse amiin gulfaam guddoomiyaha durdur media ayaa hadda khad ku jira guddoomiye soo dhow waan dhawahay xasan adiga iyo walaashay fartuun iyo nidaamiye iyo libaanshoolo oo camera nagaaga ay dhammaan mujtamaca daawanaya muuqaalkan waxaa leeyahay marka hore habeen wanaagsan aadan guddoomiye fartuun balbalaar guddoomiye gulfaam faransiisku ku sugan yahay waaye iyo waqti quro badan halkaas ku qaadanaysaa fartuun baaqay faransiiska taalada dheer faloogeeda waa kaa sugeynaa balbalaarka ayaa fadhisa nidaamin wuu fadhiyaa wixii social media ka dhacay
iyo abaalmarinta aad sheegayso hadda inaad guddoonsiinaysid iyo heerka ay noqon doonto iyo xilliga aad guddoonsiinaysid bal waa noocee gulfan waa mahadsantahay xasan oo sidana waan bogaadinayaa horumarka ay dhanka fanka kaga tallaabsatay ashan fartuun runtii sida ay ka dhawaajisa iyadoo naslimada nidaamina uu sheegay toddobaadii lasoo dhaafayay waxaa suuqa aad u geystay ama media baraha bulshada kala duwan waa youtube ahaaday videoga shirkadda sameeyey hees qaada fartuun uga falceliya runtii falcelinta fartuun waxay kaga duwan tahay heesaha kale reactionka la qaado si gaaro uniga ah iyada maxaan ku yidhahdaa loo targargarayaa sida in maxaan ku yidhahdaa siyaabo kale maxaan ku yidhahdaa dadka ay u dhaliilaan mana garan karo ujeedka gurracan ay halkaa ka leeyihiin si midda kow videogan abaalmarin ayaan rabaa inaan maxaan ku yidhahdaa ii sheeg dunsiyo fartuun oo dhab adeegtay kana dhiga furaysatay dhalinyarada aan camalka helin oo inanta ku dhegan gudoomiyaha waa aragteen nin weyn waaye wuxuu amaalmarin uu ku guddoonsii rabaa fanaanada fartuun balbalaarka videoga ay soo samaysay iyo heestii ay soo qaaday kadib markii ay ka dhaga fureysatay dhalinyarada bilaa camalka ee fartuun balbalaarka sida uniga ama targetka ama ku foorarta maadaama ay dhagaha faraha ka gashatay yaa kana dhaga adeegtay kadibna wuxuu go'aansaday in uu abaalmarin guddoonsiiyo waxaad ceeb moodaysaa maqli jire qof bay camalkiisu tahay aakhiru zamaan waxa waaye markii la gaaro ceebtaa la yiri aa lagu labisanaa saan camal waaye videogan intaanu iga egyahay haddii aad ka heshid videoga laagsaar haddaada ka helin aan laagsaar sheer dhow la wadaag dadkaanan arkaynin kumanti xun kumanti quruxsan waa soo dhaweynaynaa xumow iyo samow welcome ayaan leeyahay tan iyo kulantideen dambe waa noo tiitacadoo ku leh waad ku mahadsantahay daawashada videogan see you so long